فأنت أحقر من سرى فوق البسيطة أو تقلب في الدنا. الله إلا المصطفى هو نورنا وحياتنا وفؤادنا. ماكرون يا رمز الوقاحة والخنا، من أنت يا ولد الرذيلة والزنا؟ أتقول سب رسولنا حرية وجعلت من ترداده لك ديدنا. اخسأ رقيع فأنت أحقر من سرى فوق البسيطة أو تقلب في الدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan insha Allah wuxuu nooga bilaabanayaa meeshan muuqaalkan muuqaal ka horeeyay baa jira oo aan idinkugu soo bandhigay ama aad aragteen wadada Dayniile looga soo leexdo ee tabeelaha toos u tagta aan ka soo bilaabay meel dhaxa ku ekaatay. meeshii baan hadda ka sii bilaabay laanahu muuqaalka hore markuu waqtigiisa dhaafay baan isili intaan ka badan waqtiga ka cunin bulshooyinka kugu xiran. aad u mahadsantihiin maasha Allah tabarakallah. wadadan aad aragtaan waa wado kulay halbowle ah. halbowle waxaan mar walba u isticmaalaa wadooyinka muhiimka ah. wadadani waa wadooyinka hadii jidadka kale oo dhan xirmaan xamar laga soo keli karo oo qofka afkooda ka yimaada ama gobolada dhankaas oo dhan waa laga soo keli karaa. sidaa baan halbowle u leeyahay. halbowlena sidiisa waxaa macnaha magaca lagala jeedaa wax muhiim ah oo macnaha aan laga maarmi karin. waa wado aan laga maarmi karin haddaan si sax ah idinkugu sheego. waxaan dhinacyada ka xiga qaar waa quracyo, qaar waa geedo kaleeto magacyo kaleeto kala duwan leh. dhulku nadiifkaas weeyaan waxa waaye maasha Allah tabaaraka raxmaan. carada haddaad seexato intaasoo kale wasaqo ku raaci mayso. waa caro nadiif ah. waa hawada iyo cimilada ilaahay uu ugu nimceeyay dadka wadankan u dhashay. laakiin nimcada ilaahay inta ka shukrisaa ay yar tahay. haddii si dhaba ilaahay loogu shukriyo ilaahay wuu noo siyaadinayaa wax walba haysano. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. waxaa soo galnay meel yar dad qaxooti ay degan yihiin laakiin u dhow magaalo ama xaafad ka tirsan kulay degmada Dayniile waayo wali. لأنه wadada dhanaa wadada Dayniile toos uga soo baxday imaada tabeelaha ah. markaan ka soo gudubnay dhulka qaxootiga waxaan imaanay magaalo ama xaafad. xaafada waxaa la yiraahdaa iga dabakay. waxa laga dabakaynayo ma garanayo laakiin kulay magaca bay leedahay. markaan weydiiyay dadka ku nool waxay yiraahdeen xaafadan iga dabakay baa la yiraahdaa. iga dabakay marka ma dhamaanaysa ilaa tabeelaha ka tagna iga dabakay la ku soconeena. iga dabakay bal aan aragna sida u taalo. waxa laga dabakaynayna in la weydiiyo ficnaaleed wixii magaca u bixiyo. waxaad aragtaan hadda wadadii duurkii baadiyihii inaan ka soo dhamaanay magaalo aan soo galnay. magaaladan waxaa la yiraahdaa iga dabakay. xaafada waxaa la dhahaa iga dabakay. waxay idinla tahay tuulo soo maaha. laakiin dadka degan iyo dadka ku nool iyo xamar kulay xamar baadiyahana daa'iman anaga xamar leebo waxaa dhaheynaa dad baadiyo jooga isku heysana oo xamar meel fog ay ka tahay. xamar markii loo fiiriyay meeshan wax farqiga ee dadka noloshooda u dhaxeeya ma laha. waayo waxaa naqaanaa tuulo markii la tago ama gobolada kale la aado dadka iyo dhulka wasi si kale u yaalaan ma garanayo. laakiin meeshaan isma bedelayaan waayo waxa waaye dhulkii waxay ku jiraan muqdisho le waaye. haddana waxa waaye dhulkan bacaad waa nadiif waaye. qofka ma dhoobay iyo waxaas ma ahan.
meelaha dhoobeyda ah inta badan dadka markay ku nool yihiin dharkooda iyo midabkooduba uu aad u liitaa. inta laakiin dhoobey ma ahan, waa dhulka nadiifka ah, carada ah, quruxda badan, cimiladiisu ay sidaa u fiican tahay. wax kaloo idin dhaho ma garanayo aan ahayn dal baa ilaahayna siiyey, dhul baa ilaahayna siiyey, ilaahay aan ku wada mahadino mar walba alxamdulilah dhaha. qof walba oo meel walba adduunka uu ka joogo hadduu ilaahay ku mahadiyo mahadda ilaahay aan ku mahadinaynaa, ilaahay noo aqbalayaa, bacdeen nimcadaa baan ku hoos noolaanaynaa soo ma. iga dabakay degmada Dayniile waa ka sii dhamaan rabnaa, inkastoo ay ugu yiraahdeen dadka degan iga dabakay ma dhammaanayso ilaa tabeelaha iga dabakay lewa. tabeelaha intuu noo jiraa la yaabanahayba, wax ila dhow ahaa laakiin waa igu fogaaday. ma aragtiin waxaa soo galna quracyadii, caradii nadiifka ahayd, hawadii, cirkiyo roob ah. maasha allah tabaaraka raxmaan. inta nimcaha isku haysano waxa isku haysta way yaryihiin, ilaaha noo siyaadiyo, intaan haysanin allah siiyo. duurkaanaa soo galnay laakiin waxaan u dhownaa magaaladii oo hadda baadiyihii shisho ma jirno, magaalada u dhowna. anteenooyinkaas aad aragtaan, mar haddaaba anteenooyinkaas aragtaan, dhulkuna xoogaa uu dhidhisan yahay, internet la-aan iyo ha ka cabsanina iyo koronto la-aan. waayo waxa waaye dhulka hadduu duur cidlaahoo lama degaana yahay, internetna male, korontona male. laakiin dhulkan in la degan yahay waa ujeedaan, hawadiisa waa aragtaan. maasha allah tabaaraka raxmaan. muuqaaladeen horena ugu sii soconayaan biidnillaahi alkariim. wixii kaleeto awooddeena ah ee ziyaado ahna waan ku daraynaa, wixii aan awooddeena ahayna ilaah baan ku daynay oo ilaah baan weydiisanaynaa wax wanaagsan. caalamkala imaano marka inta ayaan usoo dhawaaday, sidaa darteed caalamkan kaleeto iyo magaaladan kaleeto muuqaalka inaa idinku tusiyo noqonaysaa. weli iga dabakay baan ku soconaa. wadadan waxaa idin sheegay inay kasoo bilaabato ama anigaba aan kasoo leexday Dayniilaan kasoo leexday. muddo aan yareen baan soo socday, muddadaas aan soo socdayna meel kale uma leexanin, wadadii toos Dayniila uga soo leexday la toos u soo qaaday. waxay ku geenayaa la yidhaahdo tabeelihiina weli maanan tegin. marka aad iyo aad ugu mahadsan tihiin sidaad muuqaaladeeda ugu xiran tihiin, waan idinkaga mahad celinayaa. anigana waan idin dadaali. wassalaamu calaykum waraxmatullah.